anigu hadda intaan abaar soo arkay ilaa waxa weeye 74kii xilligaas baan garasho lahaa fiican abaara badan baan soo maray anu midaan oo kaleeto weligay ma arag sababtu waxa weeye hadda abaar waa dhaweyd baa jidhay oo dadku biqi jiray oo barigaas iyo xoolaha iyo aryaha loo raray wadanku saatan wuu ka qaboobaa xooluhu saatan way ka qanaacaroonayeen neefkii macaa raashin la siiyo waxa weeye raashinkaa uu ku kici jiray waxbuu tari jiray xooluhu waxa weeye deegaanka way iska baktiyaan weliba arigaa sii liita iyo geela hadda ariga hadda hamba yar baa ka sii hadhay arigaa hadda tira iyo weliba siyaadu ahaa haddana 40 neef baa naftu kaga jidha aniga ii xarooda dadkii hadda waxa weeye laakiin dad hadda dhintay oo caq u dhintay annagu ma aanu maqal soonahan laakiin tabaryari iyo liidasho badan waa jidha tabaryari iyo liidasho badan waa dadka hadda asagoo qofku maaragtay awalba wax maaragtay aan naf noloshiisu hooseysay baa waxa dhici karta in xanuun ku dhaco yaa markaas uga bogsadaa waa adagta laakiin sida muuqata haddaan hadda bishaan hadda sii dhammaanaysa iyo ilaa bisha dhow caaradkeeda aan roob la helin ama ur kale rabbi u bixin xooluhu waxa weeye noloshoodu cariir bay gelaysaa iyo dadkaba waxa weeye ilaahay baa mahad iska leh waxa weeye wakhtiga waad aragtaan sida ay tahay xoolihii saasay noqdeen waxa weeye intaa hadda aad arkaysaan baa waxa weeye ka tugtugu leh oo ceel ka soo aada wixii kale waxay daadsan yihiin arlada iyo guryaha agtooda dowladda Soomaaliya iyo waxa weeye hay'adaha gargaarka intaba waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay naga soo kaalmeeyaan abaarta iyo wacyiga jira waan ugu baaqayaa way naga soo gaaraan